ugu horeeyaan guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha golayaasha dowladda ee kala duwan saan la socotaan waxaan ka qayb galay shirkii la oran jiray SPF oo ay isugu imaan jireen beesha caalamka ama sadanayaasha Soomaaliya iyo Soomaalida isugu tageen caasimadda dalka Belgium shirkaas kulay waa la socoteen waxa shir la bari soconayay looga hadlayay duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee Soomaaliya ku jirto dhan dhaqaale dhan amni dhan siyaasadeed ayaa aad looga hadlay shirkaas waxaan isleeyahay waa ka duwan shirarkii hore markii la eego qaabka Soomaalida loo address gareeyay ama loo dhaqmaayay ama loo eegayay waxaan isleeyahay wixii ka soo baxay waxay ahayn kulli qodobadii waa aragtay waa akhrisateen waxyaabo kulli aan isleeyahay haddii wax laga qabto oo lagu dhaqaaqo oo loo gudbo implementation phase wax la yiraahdo ama hirgelinta waxyaabahaas ka soo baxay inay Soomaaliya wax badan iska bedeli doonaan waqtiga dhow ayaan rajaynaa insha Allah haddii la yiraahdo dabcan intii meesha aan joognayna waxaan lahayn waxa la yiraahdaa side meetings oo ah wixii dal kale anagu ka bullaana aan danaynaynay ama dalal ha ahaadaan ama hay'ado kala duwan caalami ha ahaadaane fursad bay noo ahayd aan ku aragno dad badan oo Soomaaliya si gaar ah u danaynaya Puntland qaar si gaar ah u danaynaya oo dawladda iyo companiye iyo dad kala duwan waxaan kaloo fursad u helnay inaan la kulanno jaariyada Soomaaliyeed ee Belgium ku nool iyo jaariyada kale meel kale looga yimid oo runtii waqti soo galay in loo yimaadaan arkaan wareystaan xaaladda dalku ku sugan yahay naga wareystaan iyo guud ahaan Puntland iyo gaar ahaan xaaladda xoreynta dalka ee socota inaan si gaar ah warbixin gaar ah uga siino waxaan isleeyahay runtii wuxuu ahaa shir wanaagsan ka bacdina laba bari waxaan joogay Nairobi halkaas oo aan kula kulmay iyana dad kala duwan oo ajnabi iyo Soomaali leh gaar ahaan ganacsatada reer Puntland ee ku nool Nairobi oo laftigooda aan duruufaha dalka iyo xaaladaha dalka ka jira aan uga warramaynay iyo shakhsiyaad si gaar ah loo daneynayay oo iyana ka tirsan beesha caalamka marka waxaan isleeyahay safarku safar guul oo ahaa ilaahay wax fiican nooga soo saaro waan ku faraxsanahay dalkii oo nabad ah wax dhibaato iyo shida iyo shaqo aysan ka jirin inaan ku soo laabtay markale waa idin salaamaya aad iyo aad baad